bannaanbaxani ayaa waxa uu ahaa mid lagu cambaareynayay weerarkii ismidaaminta ahaa ee ka dhacay magaalada muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya 14 Oktoobar kaasi oo ay dad badan ku dhinteen halka tiro aad u tiro badanna ay halkaasi ku dhaawacantay waxaana dadkani oo isu soo abaabulay isugu soo baxeen jidadka xaafadda Soomaalida ee magaalada Cape Town ee dalkani Koonfur Afrika iyagoo ku dhawaaqayay in ay ka soo horjeedaan cid walba oo dhibaateynaysa shacabka Soomaaliyeed way gafanaygu naaxay alla gafanaygu naaxay dadkayga goday wada galaan gafanaygu naaxay alla gafanaha garaa gafana argafanaha garaa waxaan uga tacsiyeenayaa ummadda Soomaaliyeed nabarka xanuunka badnaa ee lagu dhuftay shacabka masaakiinta ah ee 22 sano baabaa dibka iglaanta iyo shulbiyoodka oo ku noolaa haddana loogu daray si maala yacni in dhiigooda loo qubo arrinka maanta dhacay dhaxal awow uma helin mid diini iyo maadi midna kuma imaanin dibka ay qabaan maanta ku dhacay ayaan la qaybsanaynaa waa isu soo baxnay we are very sad we are very sorry we feel shame lama soo koobi karaan mana la keeni karo dareenkayga maanta wuxuu marayay cirka ayaanu maraynaa ilaahay waxaan weydiisanaynaa inaanan maanta maalin ka dambaysa aanan ooyin bal ilaaha weydiisanaynaa waa maalin jimcaha qodbadaa laga soo baxay ilaahay waxaan ka baryaynaa inaanan maanta maalin ka dambaysa inaanan ooyin Soomaalida ku nool dalka Koonfur Afrika ayaa iskood waxa ay yihiin kuwa u dhibaataysan waxa ayna maanta murugo ay ka muujiyeen qaraxii ka dhacay magaalada Muqdisho kaas oo ay ku dhinteen dad badan oo Soomaaliyeed waxayna sidoo kale sheegeen in gargaar degdeg ah ay la gaari doonaan dadka ku dhaawacmay qaraxaasi kala daadtanaanteena laga faa'iideyst war farnaqda hooyo ma noolo wiil ma noolo gabar ma noolo ilmo ma noolo abkaw ma noolo adeer ma noolo inta la aadi afka hamina la yaaba yaasiinka waay guntiga dhiisha iskaga dhiga Soomaaliyeed intaad iska daysaan nacasnimada iyo gidaar fadhis waxaan rabnaa inaan noqono oo dhalinyarada u sheegaya meel ku soo joogan inay kacaan inay isku dayaan inay dhiig yeeshaan inay isku dayaan inay dalkooda difaacdaan waayo maanta hadii madaxda maanta dalku ay dhahaan waxay tiin dhalinyaradii bari goorma noqonaynaa dhalinyaradii maanta waa maya goorma noqonaynaa dhalinyaradii maanta walaalaha Turkiga ma iloobi doono nolosheena inta ka dhiman ilaa caruurteena ilaa kuwa ay sii dhalaan ma iloobayno reer Jabuuti wax badan bay ugu talagalay Soomaaliya in ay nabad ku soo noqoto ma iloobi doono Ismaaciil Umar Gaale xafidullah ilaahay ha ku xafido ilaahay ha ku xafido walaalaha Turkiga ilaahay ha ina xafido muslimiinta Turkiga Allah ha ina xafido Soomaaliya ma ay joogtaan Allah ha ina xafido haddii aanan dadka Soomaaliyeed oo ku dhaqan Cape Town aad baa ugu xunna walaalaheena dhimata Allah u naxariisto inta dhaawac Allah caafiyo inta hanti ku wasila anta meel kala ka siiyo adduunyada waa la ka tagaa inta dhimata way Allah u naxariisto way ka dhimata masaakiinta Allah u naxariisto dareenkeena aad buu maanta u kaasiya walaal gormal isku hagaaga gormal isku aadama gormal isticlaala ummadu waa la sii ilmihi gobol xaqeen baalqaaqada gubtada kamaareen maxay galabsadeen ma jiraan Xasan Kaafi Maxamed Shire telefishinka caalamiga Universal magaalada Cape Town